taliyaha saldhigga saddexaad ee ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland ee gobolka Sanaag Maxamed Yuusuf Maxamuud Oota oo shir jiraad ku qabtay magaalada Ceergaabo ayaa waxa uu kaga hadlay afar dooniyad oo ciidanka ilaalada xeebuhu soo qabteen. Dooniyahana waa nooca kalluumaysiga oo laga leeyahay dalka Yemen ayaa taliyuhu sida uu shirkiisan jiraad ku sheegay sifa sharci darraha uga kulmaysanaya xeebaha gobolka Sanaag. Sidoo kalena waxa taliyuhu shirkiisan jiraad kaga hadlay kooxo burcadbadeed oo ay dhawaan soo qabteen iyo dooniyo hore ciidanka u qabteen kuwaas oo buu yiri sifa sharci darraha oo qarsoodi ah badda ugu fasaxeen shakhsiyaha xilal kala duwan ka haya xukuumadda Soomaaliland ee muwaadiniinta waxaan leeyahay warbadeenni waa la boobaya badiyo beriba waa la boobaya dalkeena aan ilaashado waxaan soo qabanay 28 bisha labaad 2013 hal doon area Las Qoray baan ka soo qabanay Las Qoray baan laga fasaxay واحد منطقة وشرعية يستهدها لمجد وحن صوغة مرمى برعبالات كوبي طوانكي بشي لبعض ولكن يصدحي طوانك وحن صوغة مرمى ماشي الله يراحضوه ماشي الله يراحضوه كان يوغ وصغال صوغة مرمى سديدي طوانكي بشي صدحها ولكن يصدحي طوانك أنا سوق قبرني أفرد دوية بنا سوق قبرني أنا قرب أنا سوق قبرني ليش الله يرحم وحوي كعنت أروح هنا أنت كريم أيهم كان هركين طونا maruu taliyuhu ka hadlayay dhinaca maxkamadaha iyo garsoorka waxa uu suluug xooga ka muujiyay habka sharciga loo mariyo dadka ajnabiga iyo dadka kale ay falalkaasi ku soo qabtaan qolada garsoorka ee maxkamadaha أنا كل أربعة مدرسين شرعية سيدوي هاي يوم ما تيجوا بالله قاعدين يركنوا كودي هاو قاعدين تذكر Somaliland الشعب كانوا حمولان معي المواطنين تا وخيرات كلمة البولية أنا غير عليا أحمد كيسي إسماعيل منديق نيوس Ceergaabo.